qaar ka mid ah qareemada Soomaaliland oo maanta ku hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay golaha guurtida Soomaaliland u gudbinayaan qodobo ka mid ah xeerka kufsiga kaasi oo ay qareenadu sheegeen in ay ka hor imaanayaan diinta Islaamka iyo waliba dastuurka Soomaaliland waxayna sidoo kale qareenadani sheegeen in ay u gudbin doonaan maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland si ay wax ka bedel ugu sameeyso qodobadaasi diinta Islaamka ka hor imaanaya ee ku jira xeerka kufsiga. xeerkan waa xeer gebi ahaanba khilaafsan shariicada islaamka oo ilaalisa dhaqanka suuban iyo sharafta dadka iyo ilaalisa xuquuqdooda. qodobka afraad waxa uu ka hadlayaa in qof kale xoog u isticmaalo ugu galmooda isagoo raalli ka ahayn inuu kufsi yahay haddii labadu ay raalli iska noqdaan qofka ereygan qofka waxa ku jira nin u galmooday iyo naag u galmootay iyo nin naag u galmooday haddii iska raalli yihiin ciqaab maaragtay ma dhigayo. xeerkani waxaanu ka gudbin doonaa dacwad dastuuriya annagoo golaha guurtidana u soo gudbinay maanta lafagurkii nuqul ka mida lafagurkii xeerka saasi awgeed halkaasaanu ka wadana annagu haddaanu qareennana xeerkanna waxaa ku jira in dacwadihiisu aanay lahaynba waqti kasta la oogi karo 30 sano haddii ka soo wareegtay 40 sano haddii ka soo wareegtay inaanay caddayn xilli lagu soo dacwoon karo. xeerka ciqaabtuna si cayiman ay uga hadlay xilliga dacwada lagu soo dacwoon karo isagoo muddo u sameeyay xeerka xabka ciqaabtu laakiin sida dhaqankeenu ku salaysnaa marka masaalix diiniya ama khilaafaad diiniya ay yimaadaan waxa dhagay faraha dhagaha iska gelin jiray culimada dalka. waxaan leenahay culimadii xeerarka baananka iyo bunuugta ganacsiga daba yaacaysay ee masaajid walba jimcaha ka qaylin jirtay maye diintan dhaawaca loo geystay miyaanay arkayn mise waxa hatidaad iyo hanjabaad ku noqotay hadalladii wasiirka maaragtay qoysku ay jeedinaysay lahayd cid kasta oo ka hadasha tallaabaan ku qaadi doonaa ma taasa dib looga istaagay war wixii xaq ayaa laga istaagin culimada ha ka hadasho. geestoodana waxaa xeerkani ka hadlay qodobo ku jira oo ay sheegeen inay diinta Islaamka ka hor imanayaan xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan oo kamid ah golaha guurtida Soomaaliland. rag xildhibaanaha oo golaha wakiilada oo shalay hadlayeen waxa bay yiraahdeen diintu waafaqsan waxaanu leenahay bal waa ka xeerkii oo waliba golaha guurtida waa dhaxal buu ku yimaadaa dhaxalka Ilaahay baa jideeyay kastoo reeruhu keenan dadka laakiin dhaxalka diinteena ku jirto annagu waxaanu ilaalinaynaa waa shariicada Islaamka iyagu ha ka soo saaraan bal halku ka waafaqsan yahay shariicada Islaamka waananu waafaqsanahay in ay idinkuna surtaa ku sameeysan xeerka. Axmed Khalid Farax, Ariel TV.